wasiirka wasaaradda diinta iyo qaafta jamhuuriyadda Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdullaahi ayaa xarunta wasaaraddaasi kula wareegay aragga laga gaashanto xanuunka COVID-19 ee loo yaqaan afsaabka kaasi oo dhammaa 1,300,000 oo afsaab oo ay soo gaarsiisay hay'adda Sahmiya Foundation. agabkan ama wadeeqdan ayaa loogu talagalay in la gaarsiiyo masaajidada dalka oo dhan ayaa qaybtiisii ugu horeysay waxaa loo qaybiyay masaajidada ku yaala caasimadda Soomaaliland Hargeysa. munaasabad ka dhacday xarunta wasaaraddaasi ayaa wasiirka wasaaradda diinta iyo qaafta jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ku wareejiyay imaamada masaajidda caasimadda Hargeysa. wasiirka oo halkaasi ka hadlay waxa uu xusay in afsaabkani wax weyn ka tari doono xilliga lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. waxa runtii farxad mudan maanta oo isniina sabtiya inaynu isku soo noqono inakoo maanta shirkaddii Well Remit ee aasaasaheedu yahay mudane Ismaaciil Ibraahim Axmed oo runtii wakiiladiisu inay garab fadhiyaan ay nagu wareejiyeen maalin dhaweeto afsaabka oo ah 1,300,000 oo xabadood oo dalka oo dhan loogu talagalay haddii la yiraahdo iyo gobolada iyo caasimadda oo noqonaysa boqolkiiba taasi runtii oo aynu ugu ducaynayno in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala maalkooda u barakeeyo asaasaha iyo shirkadiisaba iyo dadka iyaguna saamilayda ka ah oo aynu ugu ducaynayno in Ilaahay ka aqbalo sadaqadan iyo khayrkan iyo barakadan ay inoogu fududeeyaan cibaadadeennii waana wax Ilaahay lagu mahadiyo runtii maynu ogeyn laakiin se culimadu maalintii hadlayeen bal ku dadaal inaad deeqahaas wax ka hesho Ilaahayna subxaanahu wa ta'aala Ismaaciil buu inoo soo diray iyo shirkadiis iyo shirkadooda laakiin liiskana waynu haynaa masaajid muqlibana waa loogu talagalay intiisa waa ugu talagalaynaa imkana waxaan ku wareejin doonaa insha Allah muxuu ahaay afsaabka oo masaajidda ku bisoo kala culus yihiin aan ugu hayno oo liiska ay ku soconay laakiin imka waxaan samayn doonaa karton muunada masaajidda dhexaad kalena isku karton marjid doonaa waa laba kun mid ba karton ku jira masaajidda weyn 2,000 bay sii qaadan doonaan haddii la yiraahdo liiskana waynu sii wadi si marka dambana aynu muujad labaad oo tan oo kala aynu ku bixino sidaa darteed inagu maqaadiir qadarka Ilaahayna aaminsan oo yaqiinsan ayaynu haddana iska ilaalinaynaa wixii suurtagala ee laga badbaadi karno xanuunada noocaas oo kala. qaar ka mid ah imaamada masaajidda caasimadda Hargeysa ayaa soo dhaweeyay agabkan loogu deeqay ee afsaabka ah ee laga gaashanto xanuunka COVID-19. tabadii sida ugu wanaagsan ee ugu qiimaha badan leh ee ugu haboon inaynu uga faa'iideyno ayaa muhiima shacabka iyo ummadda gaariga la gaarsiinayna waxaan ka codsanaynaa in talada la inoo soo jeedinayo caafimaadka inaynu sideeda markaa inaynu qaadano dhibta jirtaan waxa qofku markuu dhinto daawalba waa la dhimanayay oo geerida waynu yaqiinsanay laakiin qofkii dhinto wax alla waxaanba xanuunsado wuxuu waayaa dadku imanayay ciddii aasaysay dadii ku tukanayay cidimo u tagmaysaba marka wax weeyaan aafo aynu u baahan inaan habeen iyo maalin ka ducaysano dadkana laga wacyigeliyo qalabka iyo alaabta caafimaadka ee loo dhiibayna بإذن الله تعالى ضدك إنه وحويان وجود بيننا قاعد سينو. عبد القادر عبد الله نور تلفزيون قرن كسوماليلاند هرقيسة.